muxuu yahay adeegga isku beddelku qaabkee ayuu u shaqeeyaa maxaa shuruudaha laga baahan yahay iyo su'aalo kale oo fara badanba waxay ka mid yihiin kuwa ugu soo noqodka faraha badan leh ee nooga yimaada dhinaca macaamiisha markay noqoto adeegga isku beddelka haddaba muuqaalkan ayaan waxaas su'aalaha kaga wada jaabi doonaa asalaamu calaykum magacayga waa garad xagad naga daawanaysaana waa channelka murasa.com haddii uu nimaadno adeegga isku beddelka iyo su'aalaha runtii ugu soo noqodka faraha badan leh waxaan ugu soo horeysiin karnaa runtii su'aasha ah ugu horreyn horta adeegga isku beddelku bal muxuu yahay haddana si kooban u sharaxno adeegga isku beddelka saadkaarka magaciisa waxa uu adeeg kuu sahlaya in alaabtaadii aad ku beddelan karto alaab kale aan tusaale kugu fahansiiyo tusaale waxaad haysataa mobilkan oo ah A10s waxaad aad u baahan tahay inaad qaadato mobilkan ka sarreeya oo noociisu yahay tusaale ahaanba kaba soo qaadba 13 Pro Max waxaa la samayn doonaa mobilkan baa soo qaadi doontaa xafiiskaad keeni doontaa kadib waa la qiimeyn doonaa mobilkaaga marka la qiimeeyo ee qiimihii lagu sheego haddii qiimihii aad ku qanacday waxaad ogaan doontaa mobilkaad u baahan tahay inaad ku beddelato qiimihiis inta uu yahay kadib maxaad samayn doontaa waxaad kala jari doontaa labada qiime kadib balanska u dhaxeeya ayaa noqon doona qiimaha markasta labada mobil haddii kaad rabtaa uu qaalisan yahayna aad ku dari doonto haddii ka aad adigu haysaa uu qaalisan yahayna ay noqon doonto in adiga lacag lagu celiyo su'aalaha kale ee runtii ku soo noqodka badan dhinaca macaamiisha noqota adeegga isku beddelka ayaa waxaa ka mid ah tusaale haddii aad keento mobile waxaad ku beddelan kartaa uun mobile kale jawaabtu waxay tahay waa maya haddii mobile aad keento mobilka marka lagu qiimeeyo waxaad awood aad u leedahay inaad ku beddelanto shay kasta oo adigu aad u baahan tahay waxaad ku beddelan kartaa mobilkaagii computer waxaad ku beddelan kartaa tab waxaad ku beddelan kartaa kamarad amba shay kasta oo yaala xafiiska laptop ka iibsanayso taa cagsigeeda haddaad laptop keento oo laptopkii ku rabta adeegga isku beddelka waxaad ku beddelan kartaa laptopkaagii mobile kamarad iyo shay kasta oo adigu u baahan tahay macnaheedu waxa weeye shaygii aad keentay ee lagu qiimeeyay ee qiimihiisa lagu sheegay isagoo lacag ahaan ah ayaad ku adeegan kartaa adigoo hadba ku beddelan kara shayga adigu aad u baahan tahay su'aasha saddexaad ee kamid ah su'aalaha ku soo noqodka faraha badan leh adeegga isku beddelka ayaa waxay tahay haddii aan u baahanahay inaan ka qayb qaato adeegga isku beddelka qaabkee ayaan u qayb qaadan karaa waxaad samayn kartaa laba midun waa inaad hab online isticmaasho amba hab offline habka offline waxa weeye waa inaad booqato xafiisyada ku leenahay gobolada kadib xafiiskii aad tagto bartaana adeegga isku beddelka lagu qabto amba waxaad samayn kartaa inaad booqato website-kayagan ay ku qoran tahay sell.murasa.com kaasoo noqonaya habka online-ka adigoo buuxbuuxin doona website-ka iyo su'aalaha uu ku weydiin doona ee ku saabsan shayga aad beddelanayso kadib waxaad oran doontaa submit marka macluumaadka soo buuxiso inta wixii ka dambeeyana waxa ku soo wici doona teamka online-ka ee qaabilsan adeegga isku beddelka idinkoo isla eegi doona qaabka ugu fudud ee shaygaagii si lagugu beddelo aad u keeni karto xafiiska su'aasha afraad ee ka mid ah su'aalaha ugu weydiinta badan leh adeegga isku beddelka dhinaca macaamiisha waxaa ka mid ah waa su'aasha ah maxaa ka mid ah shuruudaha adeegga isku beddelka haddaan si kooban kugu soo ururiyo waxaa shaashada ka arkaysa in listadani ay tahay shuruudaha ugu faraha badan leh ama shuruudaha looga baahan yahayba qofka raba inuu isticmaalo adeegga isku beddelka waxaa rajaynayaa si fiican u akhri doonto ama si aad screenshot ka qaadato si runtii markaa shayga aad u baahan tahay inaad beddelato ka horba aad u sii fahansan tahay adeegga isku beddelka iyo shuruudaha looga baahan yahay ugu dambeyn waxaan rajaynayaa muuqaalka markaad fahanto adeegga isku beddelka iyo qaabka uu shaqeeyo inaad ka mid noqon doonto macaamiisha faraha badan leh ee mobiliskooda hore ku beddeshay mobiliskii ugu dambeeyay ee hadda socda ama se laptopskooda ugu dambeeyay ku dashay noocyada ugu dambeeya ee waqti xaadirkan la isticmaalo